qadadii sida ayay kusoo baxday insha allah markii aan dhameynay insha allah haddana waad ila arki doontaan sida aan u karinayo ila socda fiidiyowga dhammaad ilaa bilow insha allah markaad ka heshaana subscribe-ta iga hilmaamin iyo like-ta iyo inaad asxaabtiina lasii share garaysaan hadduu alla idmo haddana waan karsanaynaa insha allah bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeena cooking with xayaat maanta waxaa karsanaynaa qadadeeni insha allah qadada maanta waa ugaalida waxaan ka sameysan doonaa oo maraq uga dhigi doonaa insha allah intanoo shay waad u jeedaan halkan waxaan ku haystaa 4 xabo baradho ah basal guduud karoot 3 xabo karoot nus kiilo hilib ari ah inta waxaa igu jira barbarooni basal cad tamaato 2 xabo tamaato waaweyn iyo toon 3 xabo toon ah halkan waxaan ku haystaa spinach iyo cabbage insha allah ugaalida midan ayaan karin doonaa insha allah waad ila socon doontaan intan waxaan ku haystaa xabad avocado ah iyo 2 xabo orange ah insha allah cabitaankeena maanta wuxuu noqon doonaa orange avocadadana waxaan ku cuni doonaa ugaalida insha allah hadduu alla idmo tamaatadana saladka ayaan ku darsanaynaa insha allah la socod wanaagsan haddana cuntadeeni ayaan karsan doonaa hadduu allah awoodda leh ogolaado yaaray haddana ugaalideeni ayaan qasanaynaa insha allah marka hore biyaan ku qasaa kadib ayaan ku shubaa digsiga biyaha oo karkaraya sida mushaaridii oo kale dadka qaar oo u karsada way jiraan oo biyaha ku kor shuba aniga laakiin marka hore biyo kalaan ku qasaa kadib ayaan ku shubaa digsiga sida ayaan u karinaa insha allah insaabi saas ayaan u soo qasayaa insha allah markaa ku shubayo digsiga ayaad arki doontaan waan ku shubanay shuuradeeni ama ugaalidii waan walaaqeynaa insha allah ilaa ay kasoo badbadeyso walaaqa ka joojin haddii kale kuskus ayay kaa yeelanaysaa waayo fadhiisanaysaa sidaa u ilaa ay kasoo badbadleynaysa sidaa u walaaq insha allah xabaysa horteeni sida ayay noqotay way adkaatay soo maahan waxaan ku daray in yaroo soora ayaan kor uga daray markii ay soo badbaday ee waxoogaa karkaraysay waayo inay inoo adkaato ayaan rabay sidii keega oo kala noqoto waatay waad aragtaan haddana baaquligan ayaan ku ridi doonaa insha allah sidaa ila socda asxaabay haddana suugadeeni ayaan dalaacanaynaa insha allah hilibkii oo aan soo kariyey ayaan ku shubayaa ayaan basasha kula daraya waxaan kaloo ku darayaa karoodkii iyo baradhadii kadib xawaashiyada ayaan ku dari doonaa insha allah markuu wax yar soo yaro karo maraqeena waan isku soo dardarsanay khudradii haddana xawaashiyada ayaan ku darayaa insha allah toontii ayaa inoo dhiman toontana waan soo shiidayaa waan ku darayaa insha allah sida ila socda wax yar oo maraq digaag ayaan ku darsanay iminkana toontii oo aan soo shiiday ayaan haddana ku darayaa insha allah waad aragtaan 4 xabo toon ah
insha allah markaan soo bilayo ayaa soo noqon doonaa haddii allaha uu dalo karaay noqdo. maraqii hilibka aan ka miiray ayaynu ku biyeysanay, haddana wax biyo ah uma dhaweynin, laakiin waxaan ku daray biyihii aan hilibka ku karinayay markii u horeysay oo aan meel gooniya ku shubtay, kadib hadda ayaan ku biyeystay. sidaa ayaan rabaa inuu iigu karo, kadibna waan ka dejinaynaa insha allahu tacaala. sigan kalena waxaa inoogu jira caleenteeni iyo kaabajkii aan biyo ku saaray inuu 2 mar soo kara ayaan rabaa, kadib waan ka miirayaa biyaha insha allah. kadib markaas ayaan yaanyadeedii iyo qudradii oo ii diyaarah ayaan ku dalacaya hadduu allaha awooda leh ka raali noqdo, sidaa iila socda insha allah. caleentii ayaan haddana dalacaynaa insha allah. halkan ayaan kusoo gudbinayaa. caleenta saaid ha u karidin, waayo nafaqada ayaa ka dhimanaysa. wax yar dadka tus 5 minutes kadib ka deji insha allah. haddana caleentii aan ku darayaa insha allah, la socda. waan dabooleynaa insha allah. 5 daqiiqo kadib waan ka qaadaynaa insha allah. marka u dambeysana barbarooni basal ayaan korka uga darayaa insha allah. sidaa iila socda. wax yar maraq digaag oo aan badnayn ayaan ku darayaa haddana insha allah, iyo wax yar oo xawaash ah insha allah. ma badna, laakiin cafis ayaan uga baahanahay, kuma badinaayo insha allah. xawaashka aan ku daraayo waa kaa insha allah. xawaash dhuudhuub, kuma badinaayo, wax yar bes. intaas ayaa igaga filan. cafis ayaa uga baahanahay oo keliya insha allah. iyo wax yar oo maraq digaag oo meel dheer ayaan ku darayaa insha allah. ma ku badinaayo waayo suugada ayaa maraq digaag ku daray. halkan wax yar ayaan ku darayaa insha allah, ila socda. kaa yar ayaan ku darayaa insha allah, kuma badinin insha allah. markaan soo diyaariyo ayaa isku soo noqonaynaa. qadadeena ee diyaarna inoo noqoto hadduu allah awooda la ka raali noqdo. diyaaray qadadeeni sidaa ayay kusoo baxday. maasha allah tabaaraka allah. waynu soo dhameynay, waynu soo diyaarinay. waad aragtaan sida ay kusoo baxday ogaalidii maanta aan karinaynay. halkaa basbaaskii ayaa iigu jira. basbaas cagaar maanta ma haysanin, kaas ayaan haystaa, kii casaa. maasha allah. ilaahay ha noo calfo. inta aan haysanna allaha siiyo, inta haysatana allaha u barakeeyo. haddaad ka hesheen like and subscribe ha iga hilmaamina. asxaabtiina la sheer gareeyo insha allah. waxaan idin rajeynayaa maalin aada u wacan dhammaantiinaba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa inoo mar kale insha allah.